السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناتنا أصحاب قيمة يغايا لك وحرن channel كان سهم كيبل تي في ومركله يمقال كلا عصب muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa 10 heshiis oo ay Yuhuud la gashay wadamada muslimiinta taasi oo saameyn weyn ku yeeshay ayahoodii dambe mustaqbalkii taasna waxay sababtay burbur xoogan oo loo geysto wadamada muslimiinta heshiisyadaas ee saxiixeen fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka waxaanu ka codsanayna in like saarto haylowna kambalka furto si ay ku soo gaaraan muuqaalada halkaan soo gelino siina share garay muuqaalkan si ay u sii gaaraan asxaab kale uguna faa'iideystaan waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka muuqaalkan inta uu socdo. warbixintan waxaan isku dayi doonaa in aan ku tirino 10 heshiis ee taariikhda saameynta ku yeeshay welina ku sii socday saameynta dhabta ah wadamada muslimiinta ee maanta jira. heshiisyadaas bahdilaada ah ee la saxiixday wadamada muslimiinta ah waxay sababtay in ay iska dhaxlaan heshiisyadii muslimiinta ay bixiyeen jiilba jiilka ka dambeeya waxayna diiradda saartay si ay u gaarto himilooyinka muddada dheer ay ku haminayeen reer galbeedka taasi oo ka dhigtay muslimiinta maanta sanado badan kadib in ay ku qancaan heshiisyadaas ay gacantooda ku saxiixeen. heshiiska goowaad waxaa loogu magac daray goynta wadahadalkii ee ku saabsan heshiisyadii taariikhiga ahaa ee lagu bahdilay ummadda islaamka dhab ahaantii wuxuu inoo qaadayaa bilowgii heshiiskii Sefer waan heshiiska koowaad taasi oo la saxiixay bishii Agoosto 1920 taasi oo u dhaxeeyay gobolada xureynta ee Ottoman State, Germany, Austria iyo waliba Bulgaria kadib markii dhawaan la waayay kii ugu horeeyay dagaalkii koowaad ee dunida iyo waliba ansixintii heshiiskan ee boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay ahayd cidiyaha ugu dambeeya ee naxashka kala daadashada iyo waliba kala jabka ee hadhow saameyn doona isla markaana horseedi doona aakhirkiisa burbur. qodobada khilaafsan ee heshiiskaas ee boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay ka tagtay dhammaan dhulalkii ay deganaayeen dadka aan ku hadlin luqadda Turkida taasoo horseeday dawladda Cusmaaniyiinta ee xukuntay adduunka waqti aan fogeyn in ay ka dhigto dhulkeeda 3 meelood hal meel in ay ka sawarto balse xitaa dib uma soo celin wixii ka dambeeyay boqortooyada Cusmaaniyiinta ayaa lumisay dhulalkii Turkiga aan ahayn halkaasna waxaa himilooyinkii ku waayay Kurdiyiintii ay ka bilaabmeen in ay dhistaan dawlad Kurdistaan ah iyo waliba Kurdiyiintii Syria, Iraq iyo waliba Falastiin sidoo kalena la hoos geeyay amarkii Ingiriiska. heshiiska labaad waxaa loogu magac daray Ocean Street ama heshiiskii koowaad ee loo siinayaan ee siyaasadda dawladda ee ilaalinta danaha dadkii hore waa arin walaac leh. heshiiskan waxaa kala saxiixday kooxihii Cusmaaniyiinta Maxamed Nabih Beg iyo waliba Fakhridian Beg halka dhinaca Talyaanigana oo u saxiixay nin la oran jiray Pietro Bertinian Guardian Fusineto iyo waliba Kusebin Felbo. mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsanaa ayaa ahaa go'aansashada suldaanka Turkiga ee madax banaanida in la siiyo Tripoli iyo waliba Cyrenaica. ogolaanshaha dawladda Talyaaniga ee magacaabista garsoorayaasha la kala yiraahdo Cyrenaica iyo Tripoli iyo waliba in askarta iyo waliba saraakiisha iyo shaqaalaha laga saaro labadaas magaalo. heshiiska saddexaad isna waxaa la oran jiray Louisiana kadib heshiiskii Sefer kaasi oo lala wadaagay dhulkii boqortooyada Cusmaaniyiinta ee la siiyay inta badan jinsiyadaha aan Turkiga ahayn ee boqortooyada Cusmaaniyiinta madax banaaneed Turkidu way diideen waxayna dagaal adag la galeen xulafadii ilaa ay ka gaadheen guul weyn gaar ahaan Gariiga xilliga wuxuu ahaa 1922 ilaa 1923 shirkii labaad ee Louisiana kaasoo socday 3 bilood wuxuuna daba socday saxiixii heshiiskii Louisiana ee bishii Luulyo 24keedii 1923 wuxuu ka dhacay hotel la yiraahdo Beaugrand Place ee Louisiana ee koonfurta Switzerland. dhinacyada heshiiska waxay ahaayeen quwadihii gumeystayaashii ku guuleystay dagaalkii koowaad ee adduunka gaar ahaan Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo waliba boqortooyada Cusmaaniyiinta. wafdigooda uu hogaaminayay dawladii inqilaabka ee Smith. kuwa ugu muhiimsan ee cawaaqib xumada waxaa ka mid ahaa baabi'inta heshiiskii Sefer ee sameynta dawlad casri ah oo Turki oo uu ku salaysan cilmaaniyadda uu madaxa ka yahay Kemal al-Din Atatürk iyo sidoo kale ka saarista khilaafada iyo waliba salaadiintii Cusmaaniyiinta ee xukumi jiray Turkida. in Turkiga ka tanaasusho madax banaanidii Qibros, Liibiya, Masar, Suudaan, Ciraaq iyo Levanta isla markaana boqortooyada Cusmaaniyiinta ay xuquuqdoodii siyaasadeed iyo waliba mid diineed ay meesha ka saaraan iyo waliba timaaliyadeed taasoo dhibtay
Masar iyo Suudaan laga bilaabo November 1914. heshiiska afraad waxaa loogu magac daray Kichuk-Kinraj. heshiiska Kichuk-Kinraj wuxuu calaamad u ahaa bilowgii faragelinta reer Yurub ee arrimaha boqortooyada Cusmaaniyiinta kadib markii laga adkaaday boqortooyada Cusmaaniyiinta dagaalkii ay la galeen Ruushka Suldaan Cabdulxamiid, wuxuuna ku qasbanaaday in uu heshiis la saxiixdo dalkiisa dalka Ruushka bishii Luulyo 1774 oo uu ku saxiixay xero u dhow tuulo ku taalo Kichuk-Kinraj oo ka tirsan Bulgaariyada casriga ah maanta. heshiiskaas waxaa loo arkaa dharbaaxa daran taasi oo soo food saartay boqortooyada Cusmaaniyiinta marka loo eego madax banaanida badda madow iyo weliba marinada kale ee ka ganacsiga dhexdeeda, weliba in lagu ganacsado si raaxo leh. heshiiska shanaad waxaa asna la yiraahdaa Sykes-Picot Treaty. halka heshiiska waa in uu ahaadaa mid kooban oo ku saabsan dhammaan heshiisyada Sykes-Picot ee la xiriira baranka Ingiriiska iyo weliba Mark Sykes iyo weliba Faransiiska oo ka socdo Francisco Georgia Picot. Maarso 16 1916 waxay saxiixeen heshiiskii la oran jiray Sykes-Picot oo u dhaxeeyay Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka in la wadaago dawladaha Carabta bariga badda Mediterranean-ka. heshiiskaas qarsoodiga ah ee la saxiixay kadib heshiis ay saddex dal ku gaareen saddex marxaladood wadanka Qaahira markii ay komunismka ay la yimaadeen xukunkii Ruushka sanad kadib markii la saxiixay, iyadoo lagu garaacayo qalin kala qaybiya gobolada, wuxuuna galay gobolada dhammaan, wuxuuna soo jiitay isla xariiqdaas xadka qalinka ee u dhaxeeya hal qof oo ku hadla hal af. maantana qalinka wuxuu sababay in ummadda Carbeed ay isku qaybiyaan 22 dawladood oo xukuumadahoodana ay yihiin kuwo dunida isku neceb. heshiiska lixaad waxaa loogu wanqalay David Camp. General Abdul Nasir oo ka socda hay'adaha Sionismka ayaa fariin u diray Masar in ay rabto in ay furto bog cusub. fariintan waxaa soo gaarsiiyay ra'iisul wasaarihii Romanian ee ka qayb qaatay aaska iyo weliba talaabooyinka ugu horeeyay ee dhexdhexaadinta Golden Meir iyo weliba Anwar Sadat. wuxuu rumaysnaa in uu xalka ku jiro gacanta Mareykanka. 1982 taliyaasha amniga qaranka ee Ismaaciil Hafiis si uuna u saxiixo heshiis nabadeed oo Mareykanka ay la gaaraan wadamadaas. heshiiskaas nabadeed ee lala galay hay'adaha Sionismka waxa uu matalayay Harry oo asalkiisu yahay Yahuudi Jarmal ah, isagoo matalayana hay'adaha Sionismka, balse Sadat wuxuu dareemay in Mareykanku uusan dhab ka ahayn in la dedejiyo heshiiskaas nabadeed. Sadartan Sadat wuxuu go'aansaday in uu galo dagaal si xaaladda loo dhaqdhaqaajiyo. heshiiskaas loogu magac daray Camp David. heshiiskaasna wuxuu ka dhacay xerada David Resort ee ku taal Maryland una dhow Washington. heshiiskaas asal ahaan wuxuu u dhignaa bixitaanka xoogga Sionismka ee Sinai iyo weliba xoreynta dhulalka la haysto ee Falastiin, balse Rabin ayaa xaqiijiyay wareysi uu siiyay James Cartin in Sionismka dib loogu celin doono Masar iyadoona lagu bedelayo nabad buuxda. 19 bishii 1977 Sadat wuxuu qaabilay hogaamiyaasha Sionismka garoonka diyaaradaha ee Lot. 19 bishii 1977 si aan micno lahayn maalintii xigtay British Times wuxuu qoray nabadeen isku duubni Carabta ay gaartay. heshiiska toddobaad wuxuu ahaa shirweynihii Oslo ee khiyaanadii Anwar Sadat lagu khiyaanay ee saxiixa heshiiskii Camp David, waxayna albaabada u furtay khiyaano qaran. Sionismku waxay albaabada u furtay in ay Sionismka ay soo galaan inta kale ee wadamada Carabta. 1991 heshiis wuxuu ahaa heshiiskii ugu horeeyay ee lala saxiixdo heshiiska tooska ah u dhaxeeyay Sionismka, taasi oo wakiil ka ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee xilligaas ee Shimon iyo weliba ururka xoreynta ee Falastiin oo wakiil asna ka ahaa guddiga fulinta ee Maxamed Cabbaas. waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa diidmo dhaleeceen oo xakameynaysa kuwa xadgudubka ku haya shuruudahan. sababta ficilada iska caabinta ah iyo weliba ka hortagyada shaqada waa dembi ay mas'uuliyadeedu leedahay hay'adaha aan Israa'iil taageersaneen. waxaa la aasaasay waaxyo dabagal oo unugyadaas ku samaysa dabagal, waxaana loo soo gaabiyaa waaxdaas PLO iyadoona fulisay shuruudihii, waxaana loo aqoonsaday in ay tahay wakiil ka socda shacabka Falastiiniyiinta. wadahadalada lala galayo ayaa bilaaban doona in PLO ay aqoonsan tahay dawladda Israa'iil, taasi oo ka dhigaysa 78 dadka reer Falastiin inay yihiin argagixiso. sida darteedna inta soo hartay ee 12 ahna ay yihiin Falastiiniyiin sax ah, iyadoona la hoos geyn doono awoodda ay soo saarto dawladda Israa'iil. Israa'iilna waxay aqoonsatay in ay xaqa Falastiiniyiintu u leeyihiin in ay samaystaan madax banaani dhulalka ay ka tagayaan ee Gaza iyo weliba daanta galbeed oo kaliya. sida darteedna ma jirto
jirta dawlad madax bannaan oo la yiraahdo Falastiiniyiin. Israa'iilna ayaa mas'uul ka ah sugidda amniga ismaamulka, sidaa darteedna ma laha ciidamo Falastiiniyiin ah. kadib shuruudaha haray ilaa laga fuliyo heshiiskani wuxuu ahaa kii ugu xumaa ee lagu wiiqay awooddii Falastiin ee u dhaxaysay Xamaas iyo weliba Fatah. sidaa darteedna xubno badan oo Fatah ah ayaa diiday fikradahaas iyo weliba ficiladaas, iyagoona sameeyay iska caabin. waana tan ay Xamaas ka shaqaynayso in ay la dagaalanto oo ay Falastiiniyiinta ka dhigto in ay mar kale aaminsanaadaan habka iska caabinta. heshiiska 8aad waa heshiiska nabadda ee Dayton, wadaxaajoodida lagu talagalay in lagu soo afjaro dagaalkii 3 sano ka socday Balkan, ayaana lagu qabtay Right Bersin, taasoo u dhow Dayton ee USA intii u dhaxaysay 1 November 1995 ilaa 15 November 1995. heshiiskaas dartiis Bosnia iyo Herzegovina waxaa loo qaybiyay 2 qaybood oo isbarbar dhigan. inkastoo saxiix rasmiga ah heshiiskaas uu ka dhacay Paris bishii December 14 1995, haddana heshiiskaas waxaa loo yaqiin magaalada Dayton, halka oo lagu caleemo saaray isna lagu dahfuray. heshiiska 9aad waa shirkii Carabta, waana heshiiska nabadeed ee ay kala gasaxideen hay-adaha Sionisinka iyo weliba ururada xadka ee u dhaxeeya labada wadan ee dadkooda marayaan ee Carabta marka ay ahayd October 26 1994. heshiiskaasna wuxuu calaamadiyay cilaaqaadka labada dal, wuxuuna si toos ah ugu xiran yahay geedi socodka nabadda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo ururka la yiraahdo PLO. markii la saxeexay heshiiskaas, Urdun waxay noqotay wadankii labaad ee Carabta kadib Masar iyo weliba kii 3aad ee Carabta. PLO oo caadi ka dhigtay xiriirkooda ay la leeyihiin hay-adaha Sionisinka iyo weliba cabsida laga qabo in Jordan ay lumiso dhulal cusub ayaa ahayd sababta lagu dhawaaqay heshiiskaas. farqiga heshiiskaas u dhaxay ayaa ahaa in lagu kala badasho dhulalka Falastiin ee waqooyiga. hay-adaha Sionisinka waxay diyaar u ahaayeen in Boqor Xuseen ay ku wareejiyaan dhulalka ay gacanta kaga hayaan. khiyaanada cusub awgeed, Jordan waxay lumisay qayb ka mid ah dhulkeeda. heshiiska 10aad oo ah kan ugu dambeeyay heshiisyadan waa heshiiska Vienna ee siyaasadda dawladda, taasi oo lagu cirib tirayay sida ku qornaa heshiiska argagixisada. waana heshiiskii ugu xumaa, taasi oo lagu banaystay dhiigga dadka muslimiinta ah. waana heshiis aan la fahmin humaaga ka dambeeya. waa mid aad maanta ka arki karto wadamo badan oo islaam ah, wuxuuna noqday mid lagu burburiyo dawladaha islaamka sida aan ka aragno kana maqalno warbaahinta aan xaqiiqda soo tabin balse sheegta oo qura wixii loo meeriyo. wadamadaasna haddaan qaar ka xusno waxaa ka mid ah Soomaaliya, Yemen, Suuriya, Liibiya, Ciraaq, Falastiin iyo weliba qaar kaloo badan oo halkan aan lagu soo koobi karin. inta aan soo gabagabayn barnaamijkan, haddaba daawade yaad isleedahay 10kan heshiis waa ugu xumaa in ay saxiixaan ama ay aqbalaan muslimiinta? waana kee midka aad isleedahay 10kan heshiis waa ay ku fududaadeen saxiixooda? waad ku mahadsantahay daawashada inta u socday muuqaalkan. fadlan haddii aad ka hesho waxaynu ka codsanaynaa inaad like saarto, ha iloobina gambaleelka furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada halkan aan soo gelino. waxaynu ka codsanaynaa in aad asxaabtaada la wadaagto si ay u ogaadaan xogaha iyo macluumaadka aad ka ogaatay in la mid ah. mahadsanid. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. No, no, I get up, no, 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 I get up.